السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعن صاحب قيمة قدرلت إيقايها لقم دلو وحال هودي دكالي لهي رمضان الكريم رمضان مبارك مال البواد جوكتان يا مرحلة دول بواد القدا والإسان. صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري. صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري. maanta waa maalintii 13aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana hadii Allah uu dil raali ka noqdo aan muuqaal kal uga hadli doonaa soonka dhalinyarada sidee looga dhigaa bil markaa isbedel dhab ah markaa la sameeyo waa dhalinyarada ee quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko waxaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa hadafyo markaa ama goolal markaa ay tahay in markaa aad dhalisaan sida markaa sidoo kale aad u maareen lahaydeen shaashadaha iyo sidoo kale sidii aad u dooran lahaydeen asxaabta saxda ah ayaan daawadayaal idin soo baahil doonaa waxaa kaloo dabcan idin soo bandhigi doonaa toobada iyo sidoo kale isbedelka iyo muhiimadda markaa bisha barakeysan ee Ramadaan ay inoo leedahay waa hagaagi daawadayaal muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaalo markaan ugu talagalnay inta lagu guda jiro 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan maantana waa maalintii 13aad waxaana dabcan miiska inoo saaran oo aan ku faaqidi doonaa soonka dhalinyarada iyo sida markaa aan uga dhigi lahayn ama sida looga dhigi lahaa bil markaa isbedel quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko ha u soomin sidii markaa inay caado ahayd oo dadka aad iska raacdo oo kale qoro 3 hadaf oo aad rabto in markaa aad bishan gaarto dhalinyarnimadu waa marxalad markaa tamar iyo hami badan balse sidoo kale waa xilli markaa ay jiraan caqabado badan oo dhanka tiknoolajiyadda ah iyo sidoo kale asxaabta ah ramadaankan waa fursad markaa aad rasad ugu sameyn karto noloshaada waxaa ugu horeeya oo loo baahan yahay dabcan in qofku uu yeesho hadaf ha u soomin sidii markaa inuu caado ahaa soonka oo kale oo aad iska raacdid dadka hore u soomi jiray balse waxaa loo baahan yahay inaad yeelato hadaf iyo qorshe cad oo aad rabto markaa in aad bishan gaarto hadafyada aad samaynayso waxaa ka mid a hadaf diini ah tusaale inaad markaa xifdiso hal suurad oo cusub oo ka mid a qur-aanka kariimka waa dabcan suurad hore oo xifdisleed balse markaa aad baranayso tafsiirkeeda akhris oo kaliya looma baahna in markaa aad ku soo koobto waxaa kaloo muhiim ah in markaa hadaf shaqo ama hadaf waxbarasho aad la timaado tusaale in markaa aad barato xirfad cusub saacadaha u dhaxeeya casarka iyo sidoo kale afurka oo kale waxaa kaloo muhiim ah in markaa aad la timaado hadaf dhinaca akhlaaqda ah tusaale inaad joojiso hadallada xulxul ama xanaaqa marka bulshada markaa aad la looshahay dhexdooda aad joogto وبشان سجينه إلهي نسيه حين سعيدين صوم رمضان hagaag sidee markaa loo maareeyaa shaashadaha haddii aynu eegno caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada maanta waa baraha bulshada sida TikTok Instagram iyo sidoo kale Snapchat Facebook YouTube iyo waxyaabaha markaa la halmaala oo dabcan dhalinyaradu ay kala kulmaan ama markaa laga heli karaba waxyaabo xun iyo waxyaabo markaa wanaagsan oo dhalinyaradu faa'iido u leh haddaba sidee markaa dhalinyaradu ay u maareen karaan arrintan haddii talooyin markaa aan idinka siino waxaad samaysaa inaad xadido waqtiga inta aad ku jirto internetka halkii aad saacado badan
markaa ku lumi lahayd aaladahan markaa baraha bulshada ee aan dhammaadka lahayn isticmaal waqti kooban si markaa aad u dhegaysato casharo diini ah ama in markaa aad akhrisato buugaag oo kale. xusuusnow maalin kasta oo ramadaan waa fursad aan soo laaban lahayn. ha ku lumini markaa in baraha bulshada oo kale aad ku lumiso ama aad markaa ku daawato muuqaallo aan wax faa'iido ah kuu lahayn ama wax markaa aan aakhiradaadii kor u qaadaynin ama waxba aan u taraynin. waxaa kaloo iyana muhiim ah in qofka dhallinyarada ah uu doorto asxaab markaa wanaagsan ama asxaabta saxda ah. nabigeenna moxamed naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee waxa uu yidhi qofku waxa uu raacaa diinta saaxiibkiis. ku dhowow dhallinyarada markaa kugu dhiiragelinayso in markaa aad aaddo masjidka iyo in markaa qur-aanka aad akhriso. kana fogow wakhtiga markaa kuwa kaa deliya ama wakhtiyada markaa inaad ku disho daawashada fiidiyoyaal markaa la xiriira ciyaaraha iyo sidoo kale falanqaylta siyaasadda oo kale oo dabcan waxyaabo xil ah aad markaa ama waxyaabo xul markaa aad ku daawanayso oo habeenkii iyo sidoo kale maalintiiba markaa in wakhtiga ugu badan aad ku bixiso daawashada aflaamta iyo fadhi ku-dirrada. waxaa jira waxyaabo markaa ka muhiimsan oo ay tahay in markaa aad ilaaliso. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. ilaali firfircoonnida jirka. sidee markaa aad ku ilaalin kartaa firfircoonnidaada? dhallinyarada qaar waxay u haystaan in soonku uu yahay hurdada maalintii iyo sidoo kale soo jeedka habeenkii. ha noqon qof daciif ah. sameey jimicsi fudud afurka ka hor qiyaastii 30 daqiiqo. jimicsigu waxa uu kordhiyaa firfircoonnida maskaxda waxauna uu kaa caawiyaa in markaa si fiican aad u seexato habeenkii si aad markaa u soo kacdo taajudka. ka faa'iidayso saacadaha dahabiga ah inta markaa lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan. saacadaha u dhexeeya casarka ilaa iyo afurka waa wakhtiga dhallinyarada badankood ay ku baxshaan ciyaaraha ama internetka. ku bixi saacadahaasi ducada, barashada tafsiirka ama sidoo kale caawinta hooyada iyo aabbaha. ducada dhallinyarada sooman ee alle u dhow waa mid markaa aad u qiimo badan. towbadda iyo isbeddelka haddii aynu eegno ramadaanku waa fursadda ugu wanaagsan ee aad uga hari karto caadooyinka xunxun sida sigaarka iyo sidoo kale daawashada waxyaabaha xaaraanta ah ama dib u dhigaya salaada. haddii aad dembi gasho haquusan. alle waa dembi dhaafe. isticmaal bishan si aad markaa u dhistid dabeecad cusub oo aad la bixi karto ramadaanka kadib. gebagabadii dhalinyaro mustaqbalka ummaddu waxa uu ku jiraa gacantiila. haddii aad bishan u sooltaan sidii la rabay waxaad noqonaysaan kuwo adag oo dhanka maskaxda, jirka iyo sidoo kale ruuxdaba ka diyaarsan. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa muuqaalkeelii kooblaa ee markaa aan uga hadleelay soonka dhallinyarada iyo sida markaa ugu wanaagsan ee bisha looga dhigi karo bil markaa isbeddel dhab ah markaa la sameeyo. waana maalintii 13aad ee bisha barakaysan ee ramadaan. qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko. intaas ayaan ku soo koobaynaa daawadayaal muuqaalkeenna oo ka mid ahaa muuqaalo taxano ah oo aan ugu tala galnay
in markaa bulshada Soomaaliyeed aan u soo baahilo inta lagu guda jiro 30 bisha barakeysan ee Ramadaan. tan iyo inta aan ku kulmi doono muuqaal ka lamida waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.